السلام على رسول الله golaha wasiirada halkan jooga iyo xildhibaanada maamulka iskuul Royal Muslim waalidiinta sharafta badan ee halkan jooga waxaan u jeedaa madax oo ayaguna kamida guddiga doorashooyinka qaranka hooyooyinka ayaa la marwana iyo aabayaasha sida meeshan ka muuqata hooyooyinku inay la barwan yihiin halkan ayay ka muuqataa waxaan leeyahay hambaliyo ardada maanta qalin jabinaysa waa u ducaynaynaa waxaan u mahadcelinaynaa iskuulkan sharafta badan ee soo saaray dadka macnaha leh ee hortanada ku soo bandhigay wax aan garawsan karno oo ah waxa dadku ay barteen inay hortaada ku sameeyaan siyaasiyiin iyo ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkan loogu soo bandhigay dadka qalin jabiyay cilmiga la baraa dadka runtii waa inuu la jaan qaadi karaa wacyiga ay dalal walba adduunka ay ku sugan yihiin marka arday waxtar leh ayuu Royal Muslim Academy soo bandhigay waxaan leenahay dadaalka aad u gasheen ardada halkaas ka sii wada annaga maamul ahaan degmada Hodan waxaan nahay degmada ku faani karta inaan nahay iskuulada ugu badan ee ugu macnaha badan ee Royal ka mid yahay inay degmada Hodan ku yaalaan been ma ka sheegay maalinkii aan degmada Hodan gudoomiyaha ka noqonayo waxaan arkay arday galaas loogu soo galay iyo macallinkii oo la dilay macallinkii iskuulka markuu soo baxay mobilka dhigaaliyay waa la dilay ardadana gudaha iskuulka ayaa waxa looga qaatay mobilkii iyo laptopkii wax ku baranayay ayaa looga qaatay maantana waa garan kartaan wadooyin nadiif ah inaad martaan interlogyo inaad dhex martaan inaad horumarkaas anagu qaybta aan ku lahayn in aan kala shaqeyno ayaan qaasaynaa taasna waxay sabab u noqotay inay noqoto degmadii aqoonta iyo caafimaadka oo labadiiba ay noqdaan adeegga ugu badan ee bulshada marka sidaa darteed Royal Muslim waxaan leenahay idinkuna waa shideen annaguna waa shidnay waxaan rabaa in halkan uga mahad celiyo hooyooyinka sidii uu wasiirka iga horeeyay sheegay halkan waxaa jooga hooyooyin ma garan kara aabayaasha meel ay jiraan hooyada inay wax bartay waxa dareemi kara qofka aniga oo kala ah oo hooyadiis ay soo garab qabatay marka hooyo aad u mahadsantihiin aabaha Soomaaliyeed haddii la yiraahdo ama canugan gee isbitaal ama iskuulka hore u sii wad wuxuu aaminsan yahay inuu soo waxaas shaqo ku lahayn oo asoo u degdegay inuu fadhi ku dirir aado oo meel fadhi ku dirir aado waxa leeyahay war canugan ama caafimaad uu rabaa hooyada ayada caafimaadka geynay ayada waxbarashada geynay ayada meel walba geynay marka aabayaasha waxaan leeyahay walaalayaal qayb ka qaata ilmaha iskuulka aabayaasha geey adduunyada hooyana waxay u sii diyaarsan ama shaqay wada aadan qofo mar u aadan laakiin hadda sharingki meeshan ka muuqdo waxa ka muuqda hooyada inay wax walba ayada gadayso inay ayada shaqeynayso inay iskuulka ilmihi geynayso inay caafimaadka geynayso marka hooyada Soomaaliyeed runtii ma aqaan wax lagu tilmaami doono iyo wax lagu abaalgudi doono aad iyo aad aan ku mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaa dadkan soo koraya quruxda badan iftiimka waxaan leeyahay soo dhawaada Royal Muslim waxaan rajaynayaa KBB aad joogtaan degmada Hodan waa weynta qaybaha kala duwan inaad baranjiyada waxa cabashada hadda ay soo gaarayso waxay tahay waxa la leeyahay halkaas dhinacay jiraan dhinaca kalena ha tago marka waxaan ka rajaynayaa inaad qaybaha kalena tagi doontaan degmada soo dhawaada aad u mahadsantihiin salaamu calaykum